بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاوة waxaa xarunta madaxtooyada ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya oo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigaran uu ku qaabilay saraakiil ka socday ADMIS oo ugu horeeyay hoggaanka tababarada ee ADMIS kulanka madaxweynaha waxaa ku welinayay taliyaha booliiska gobolka Baay iyo taliyaha saldhigga booliiska degmada Baydhabo iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda koonfur galbeed waxaa guud ahaan laga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa loona xoojin lahaa tababarada ciidamada koonfur galbeed oo runtii kooxda ADMIS ay mar walba ay siiyaan training fara badan oo runtii ku saabsan habdhaqanka iyo sidoo kale la tacaamulida dadka bulshada madaxweynaha wuxuu bogaadiyay shaqada wanaagsan ay ka hayaan ADMIS deegaanada koonfur galbeed iyadoo runtii dhawaan la xareyn doono ciidamo cusub oo ah booliis oo ka kooban ciidanka CID-da ciidanka taraafikada ciidankii booliiska ee sugayay amniga guud ahaan magaalada sidoo kale wuxuu madaxweynaha kooxdan ADMIS runtii u bandhigay qorshaha guud ee degmooyinka koonfur galbeed si loo gaarsiin lahaa tababarida ciidamada runtii booliiska ah wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigaran oo ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu u bandhigay qorshaha guud ee dowladda koonfur galbeed ee kaga aadan sidii degmooyinka koonfur galbeed loo gaarsiin lahaa tababarida ciidamada ee isugu jira CID traffic iyo sidoo kale ciidamadii ee sugayay amniga degmooyinka iyo deegaanada runtii ADMISna waxay ogolaadeen ay aqbaleen codsigii madaxweynaha ee ahaa in la dhiso ciidamo cusub loona dhiso degmooyinka runtii ayna sheegeen in ay dardargelin doonaan in degmooyinka koonfur galbeed la gaarsiin doono ciidamo cusub si loo dhisi lahaa koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ay hadda waxay rabaan in ay u tababaraan ciidamo booliis ah oo sidaan hore u sheegay isugu jira traffic iyo sidoo kale ciidamada CID-da iyo sidoo kale ciidamada sugayay amniga magaalada sidii ay ula tacaamuli lahaayeen bulshada dhammaan ayaa ku jira tababarida iyo runtii wayna ku mahadsan yihiin sida wanaagsan ay mar walba u garab taagan yihiin ugu dambeyn wuxuu madaxweynaha kaga mahadceliyay shaqada wanaagsan ay mar walba ka hayaan koonfur galbeed isagoo ku baaqay mar walbana in la dardargeliyo tayanta iyo kor u qaadista ciidanka koonfur galbeed kulanku wuxuu kusoo dhamaaday si qurux badan oo runtii la isku fahmay in la dardargeliyo shaqada ciidamada ee amniga ee koonfur galbeed waa mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu